Xiisadda Bariga Dhexe ayaa sii xoogaysatay kadib markii warbaahinta Iran ay sheegtay in ilaalada kacaanka Iran ay weeraro ku qaadeen saldhigyo Mareykanku ku leeyahay dalalka Khaliijka, gaar ahaan Kuwait, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrayn. Wakaaladda wararka ee Fars ayaa baahisay in weeraradaasi ay ka mid yihiin tallaabooyin aargoosi ah oo Iran uga jawaabaysa duqeymaha ay saaka Tehran ka fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil. Dowladda Bahrayn ayaa xaqiijisay in xarun adeeg oo ka tirsan taliska ciidamada badda Mareykanka lagu dhuftay gantaal. Xaruntaas oo ku taala magaalada Manama ayaa la sheegay in ay la kulantay duqeyn, iyadoo la filayo in faahfaahin dheeraad ah la soo saaro. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrayn ayaa muwaadiniinta u dirtay digniin taleefano ah oo ku saabsan khatar jirta, iyadoo seeriga gurmadka degdega ah laga maqlay qaybo ka mid ah caasimadda. Sidoo kale, seeriyo digniin ah ayaa laga maqlay meel u dhow saldhig Mareykanku ku leeyahay dalka Qatar. Mas'uuliyiin Qatari ah ayaa sheegay in nidaamka difaaca gantaalada dalkaasi uu hawada ku qabtay gantaal Iraani ah ka hor inta aanu gaadhin bartilmaameedkiisa. Dhanka kale, Imaaraadka, dadka ku nool magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn subaxnimadii Sabtida. Wakaaladda wararka ee WAM ayaa xaqiijisay in Imaaraadku si guul leh u qabtay dhowr gantaal oo Iran soo riday. Si kastaba, mas'uuliyiintu waxay sheegeen in firar ka dhashay gantaalada la soo riday uu ku dhacay xaafad ku taala Abu Dhabi, taasoo sababtay khasaare hantiyadeed iyo dhimashada hal qof oo ajnabi ah oo Aasiya u dhashay. Hay'adda duulista rayidka ee Imaaraadka ayaa ku dhawaaqday in si ku meel gaadh ah loo xidhay qaybo ka mid ah hawada dalka, arrintaas oo lagu tilmaamay tallaabo taxaddar oo gaar ah. Weeraradan ayaa imaanaya iyadoo xiisaddu cirkas ku sii shareertay kadib howlgallo milatari oo ballaaran oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ka fuliyeen gudaha Iran, taasoo keentay in Tehran ku dhawaaqday in ay qaadi doonto tallaabooyin aargoosi ah. Beesha caalamka ayaa si dhow ula socota xaaladda, iyadoo laga cabsi qabo in iska horimaadkani isu beddelo dagaal ballaaran oo saameeya guud ahaan gobolka Khaliijka iyo marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee halkaasi ku yaala. Wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. Aniguna waxaan ahay wariye Mahad Aadan Xuseen.